xilli ka mid ah xilliyada waxaa jirtay tuulo dhowr kiiloomitir u jirta baytulmaqdis ayaa waxaa ku noolaa nin ku caanbaxay cilmiga iyo alla kacabsiga kaasoo lagu magacaabo cusayr wuxuu lahaa beer yar oo xoogaa ka fog tuulada uu deganaa maalin kastana wuxuu aadi jiray beertiisa si uu u soo waraabiyo xoolihiisa haddaba waxaa jirtay beertiisa iyo tuulada uu degan yahay meel u dhaxaysa inay ku yaaleen meel qabuuro ah maalin kastana uu sii mari jiray qabuurahan meesha ay ku yaalaan ayaa ahaan jirtay deegaan camiran oo ay ku yaalaan xadaarad mug weyn leh ka hor inta aysan burburin oo aysan isku beddelin meel dadka lagu aaso iskuna beddelin deegaan wax nolol ah aysan ka jirin haddaba cusayr sidii caadada ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayuu ka baxay tuuladiisii si uu u soo daajiyo xoolihiisa markii uu ka soo dhammaaday hawshii xoolaha daajintii waraabinta ayuu wuxuu is yidhi tuuladii u laabo cimiladu aad ayay u kululayd markii meel dhexa uu marayana isagiyo dameer uu watay waa ay dhaqaaq waayeen kulaylka daran ee ka jira meeshaas awgeed wuxuu damcay inuu ku leexdo qabuuraha meesha qabuuruhu ku yaaliin si uu uga raadiyo gabbaad ay isagiyo dameerkiisu ay xoogaa ku nastaan